هلو mudane feerka logistiga ayaan rabay ofiska Fawzina wuu xiran yahay ofiskaaga ma yaalaa maxaa dhac Fawz maanta ma soo shaqo galin may ma soo shaqo gelin inuu kuu sheegay ayaa u maleynayay xaaskiisa ayuu isbitaal kula jiraa oo dhalaysa sorry week ka hor ii sheegay anaa hilmaamay horta ma loo dhalay mise weli saacad ka hor ayaa wiil loo dhalay mudane maasha Allah ilaah u barakeeyo feelkaas originalkiisa xafiiskayga yaala kaas ka tixraac waayahay mudane okay Fawzi hadii way orosay maasha Allah xaaskiisina oo dhashay si fiican ugu dhagsanaa sababta ay u sheegaysid arintaasna ani adiga hore uga wada hadalnay ha qaali laakiin 3 sano asqabnaa oo haddaan isqabnane aniga horaan kugu sheegay marib hadina ilmo dhalo noloshan maxaa ka maqan caruurtan maanta wax kasta u baahdaan oo gadi karnaa oo aniga kugu filmiya أنا أول فيلم تاعك بدن تاولي. أنا كأركه هذا اللي وصل بهاي الصور فريسناني. أد إيش ودي بتملهن؟ أنا قاعد أسفي عن أكو أخانا. ما أنت إسقور سنين إنه أكو شيء. أنا جمرة بريحيت كيجنا على دجو. مرك صوبتي عشان أديده. ما أنت أديجي أنا قاعد أحركن. يقرأ الأبا قالي. يقوم الحركة شيء طبعا. سجله laba wiilaan dhale gabar faa'iidada iyo raxmadda ay leedahay 3 sano ka hor marka gurigeyga timide ayaan ogaaday hooy macaan raja ayaan ahaa booska hooynimana adiga ii buuxiyay sidoo kale ani keligay maadan ii buuxin walaalay xataa adiga u buuxiyay sababtaada ayay ku helaan waxbarasho free ah ilmahaas waxbarashadooda ha ka cabsan ilaa heer jaamacad anaa u joogo laakiin aad waxaan ka rabaa inaa ilmahaas waxbarashadooda aad ku ogaatid Sumaye iyo Saacid tartan waxbarasho ayaa ka dhaxeeya labadoodana buundooyinka ay ku tartamaan taasna waxbarashadooda ay faa'iido u leedahay horta hooy waxaan ku weydiinaa hooy 3 nin bas maan dhashay may hooy 4 ayaa ahayn 2 gabdhood iyo 2 wiil hal wiil aan naga saqiiray maasha Allah maalinta qiyaamo ayuu anfacaa hooyo saqiir aan qiraad Allah ugu dhigo hooyo amiin hooyo كودا خالي والله وايا كي كل دشي ayaa sida qortay darbi meeshan isku dhajiya soo indhaha isku haa muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa ma weydinay marka kaas oo dib badan hooyla ama ku ciyaar rabaa sheekadan ciyaar ka weyn kowde arintaas sida qortay darbiga isku dhajinayo tii ka dabtay la dwaaniga
Zakariya jikada maxaa ka dhex qabanaysaa? دمشق بيها صوتات Laakiin maxaa noogu sheegi wayso lagu keeni lahay? لمنا دمشق حتى أنا قاعد صوتات سماها Walaalka maalin galabkeed jikada muusan soo dhex istaagin. Taasna waa xeerkii dhaqanka gurigan u yaalo. Waan hubaa inaan noqonayso mid u hoggaansan. دمشق كذا بعمل يا روشة Maya, laakiin gabdhaha gurigan jooga ayay ceeb ku tahay inay raggooda jikada dhex boodaan. هذا يكفي دمشق مركل مدرسة Zakariya wax wax badan inaa ogaado inaad taqaan magacayga maxaa aqoon magacaaga oo maqlaa habeen iyo maalin inaa ku qarwa iga soo dhaweey laakiin sidee sheeko walba hooyo iga sheekeynaysa adiga dhex taagnaa way maani ka sheegi jirtay haa sheekada igu qasarka badneed ay ii sheeg waxay ahayd markaa surwaalka dooliga dabada ka cunay aad dugsiga ku aaday adigoo ardada kugu saacamirta adigoo oynaysa xaafadda imaanaysay inna lillahi wax ma ku sheeg laakiin aniga yaa wiil diriska ugu asagana Zakariya ma lahaa hooyo hooyo maxaa la qalina bisinkii qeyr sheeg bal hooyo oo maxaa kugu dhac maxaa la inay ceebaysay oo maxaa kugu ceebiyey hooyo hooyo arrimahayga isaga adiga ma ugu sheekeeyey maxay tahay hooyo arrimaha ugu sheegi yaraanteeda adiga ma ugu sheekeeyey maxaa ka micnaa hooyo yaraantaadii weynaantaada anaa uga sheekeeyey inaan kugu faano soo ma ogid hooyo hooyo laakiin waxyaabaha qaarna u sheegta ma hayno hooyo sagal qof afgaaban waaye hooyo adaa qofqabtiisa kaalna Indhaha hooyo. kaale hello استغفر Waxaan ku weydiiyey Zakariya muxuu la qelinayay? ma aqaan Baryahan uma bogin wax gurigan ka socdaani. wax sidee ah Adduunyada waxaa ugu necbahay isdabaaliska. Adigana waa ku dheereysaa. Marka wax ku weydiisay caadi ah iga jawaab. Hadda isla su'aashiya ku weydiinaya. Anigoo filaaya markaan inaad sida saxda ah iga jawaabaysid. weydii Zakariya muxuu la qelinayay? isla su-aasha daa i weydiiso isla jawaabta lama helaysido Taasoo ah ma aqaan wuxuu qeylinayo